xafladan ee maanta aad u jeedaan ee quruxda badan waa dhaqan soo jiritaan oo waqti badan soo jirtay ilaa iyo 1300 oo qarni ayay soo jirtay dhaqankan waxa way badgal ayaa la dhahaa istunki ayaa la dhahaa shira la dhahaa waxa taqaanin in lagu qaban jiray sida gobolada oo dhan oo banaadir oo dhan ayaa lagu qaban jiray maanta sanadka kale dadka waxa dareemaysaa nabadgelyo inay imaaday waxa maanta fagaarahan iskugu imaado aad marxaati ka tiin ilaa 6-7 degmo oo sida Cabdilcasiis oo soo duubateen Shangaani xamar weyne xamar jajab waa bari shacabka reer banaadir marka hadda aragtaan inta hadda joogan ruux waa inta soo baxday laakiin waxa maqan intaan iyo 100 jibaar marka waxaa ogaataan arin waxa way dhaqan ah ma aha mid siyaasadeed oo soo jireen ah sanad kasta la qabtaa 9 maalmood ayaa quraan la aqrinay waxa loo duceeyaa dalka waxa loo duceeyaa dadka iyo diintaba waxa way odayaalaha fadhiyay waxa loo duceeyaa dawladda markaas jirto ee wadanka waxa loogu duceeyaa in wadankeena Ilaahay uu ku soo celiyo sidii hore iyo si ka fiican waxaan leenahay waxaan mar labaad mar saddexaad aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre oo ayaga maanta in meeshan ummadan shacabkan iskugu imaadaan Ilaahay ka sokow sababtooda leh waxa way amniga dalka ka jira ayay u muujinaysaa shacabka Soomaaliyeed dibadda iyo gudaha waxa ay cadeynayaan in ay wadanka nabadgelyo buuxa ka jiro inuu wadanka horumar ka jiro inuu wadanka ka jiro barwaaqo ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dalkiina u soo laabta dalkiina dib ugu soo laabta horumarka dalkiina ka shaqeeya nabadgelyada dalkiina ka shaqeeya waxaan leenahay dadka walaalaheena ee qaxootiga ee gobolada dowladaha dariska naga jiraan dib in loo soo celiyo wadankooda lagu soo celiyo waa u jeedaan in shacabkii waqtigan ay dabaaldegayaan waxay ku tusinaysaa annagoonan ciidan iyo aanan cidna wadanin inaan wadooyinkii si nabadgelyo aan ku marayno Ilaahay ka sokow waxa maadaas iska leh xukuumadda maanta joogto ee uu madaxda u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma aysan ka dhicin taariikhda in 8 degmo iskugu soo baxaan shacabka banaadir oo dhan oo aan cidna ka maqneen